أنا ونأكثر صاحبتنا هودا كصاحبني ومركاني وراركي وربحنا ugu xiisay xamaasada badna hadaan oo kale israac media ka daawo jirtay waxa kamid ah Puntland oo deegaanadeeda ka mamnuucday mas'uuliyiinta dawladda dhexe gudoomiye Musul oo maanta furay kulanka golaha shacabka madaxweynaha koonfur galbeed oo maanta ku wajahan degmada Xudur wararkaas iyo warar kale aadeen qarina aad ku maqal doontaan barnaamijkeena haduu ay beedmo subscribe sar gambalka kana furo si aad u hesho warar wixii ku dhaafay ama waxa minidka dhacaya wararka laga helayo xarunta golaha shacabka ayaa sheegaya in daqiiqado ka hor ay furmeen kulanka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kulankani waxa soo xaadiray 152 mudane waxaana shirka gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ajandaha kulanka ayaa ah hadal jeedinta gudoomiyaha golaha shacabka akhrinta iyo doodista miisaaniyadda dawladda 2019 gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa shir gudoominaya kulankii 31aad ee golaha shacabka dood iyo muran dheer oo taagnaa muddo bil ah ayaa maanta si rasmi ah u furmay kulanka golaha shacabka kadib markii uu hakad galay kala fadhigii baarlamaanka taasi oo sabab u ahayd markii mooshin laga gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo guddiga amniga doorashooyinka Puntland oo warbaahinta kula hadlay magaalada Garowe ayaa soo saaray awaamiir ka kooban 7 qodob kuwaas oo ku aadan dhanka ammaanka deegaanada maamulka Puntland warqad ka soo baxday guddiga ayaa waxaa lagu sheegay in mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda Soomaaliya aysan tagi karin deegaanada maamulka Puntland isla markaana laga mamnuucay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Green ayaa maanta la filayaa inuu tago degmada Xudur ee gobolka Boqol ammaanka wadooyinka soo gala degmada Xudur ee gobolka Boqol ayaa saakay aad loo adkeeyay iyadoo oo wadooyinka lagu arkayo ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed qabanqaabada soo dhaweynta wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa ka soconaysa degmada Xudur ee gobolka Boqol wafdiga madaxweynaha ayaa markii ay tagaan degmada Xudur waxa ay kulan la qaadan doonaan madaxda maamulka degmada iyo odayaasha dhaqanka iyo shacabka ku nool degmadaasi 19 bishan ayaa la doortay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafti Green waana markii ugu horeysay oo booqasho ku tago degmada Xudur